Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada saaxiibayaal mar kale. Magacaygu waa Injineer Ismaaciil Maxamed. Waxaa noo socday kooraskeenii barashada Windows 11. Casharkaani waa casharkii toddobaad. Casharkeenna waxaan ku qaadan doonaa waa maxay starting menu, sidee u shaqeysaa starting menu, sidee kombiyuutarkaaga wax uga bedeli kartaa adigoo isticmaalaya starting menu. Ugu horreyn, starting menu waa albaabka ugu weyn ee laga galo kombiyuutarka. Waa halka ay hoos yimaadaan dhammaan wax walba oo ku saabsan kombiyuutarka, hadday ahaan lahayd settingka, hadday ahaan lahayd qaybta searchingka ama baarista. Sidoo kale starting menu waxay qabataa dhammaan wax walba oo shaqo ah ee kombiyuutarka looga baahan yahay. Starting menu waa qaybta ugu muhiimsan ee Windowska oo aad ka heli karto dhammaan barnaamijyada, faylasha iyo settingka kombiyuutarka. Ugu horreyn, starting menu waxay kaga soo muuqanaysaa qaybta ugu hooseysa ee taskbarka. Qaybtan geeska ah waa starting menu. Haddii aad rabto inaad furto, waxaan leenahay click. Dabcan markaad tiraahdo click, waxaa kuu soo muuqanaya daaqadani. Daaqadani waxaa la yidhahdaa starting menu, waana qaybta ugu muhiimsan ee kombiyuutarkaaga. Starting menu si kooban shaqada ay qabataa waxaa ugu horeeya, haddii aad u baahan tahay inaad file ama folder ama application ku jira kombiyuutarkaaga inaad search gareyso ama aad baarto, waxaa kuu qabanayso qaybta ugu koreysa ee starting menu. Haddii aad rabto inaad settingka kombiyuutarkaaga wax ka bedeshid, waxaad isticmaalaysaa iconka setting. Dabcan settingka waxa uu qabtaa waa mara doona hadduu alla raali ka noqdo. Ugu horreyn, starting menu marka sidan u soo furantid, waxaa kuu soo muuqanaya qaybtan ugu koreysa searchingka, si lamid ah qaybtan pinka, si lamid ah waxaa kuu soo muuqanaya recommendedka applicationada ugu dambeeyay ee aad isticmaashay. Waa inaad ku search gareysaa ama aad ka baartaa kombiyuutarkaaga file ku jiray, hadduu ahaan lahaa file, hadduu noqonayo folder, hadduu yahay application. Ugu horreyn searchingka waxaan ku qoraynaa Word, Microsoft Word. Waxaan ku qoraynaa meeshaan ugu koreyso Word. Sidaad aragto waxaa kuu soo muuqday Word. Haddii aan rabno sidoo kale inaan baarno kombiyuutarkana ka baarno Excel, waxaan ku qoraynaa qaybta kore ee starting menu ee searching. Waxaan qoraynaa Excel. Sidaad aragto waxaa kuu soo muuqday Excel. Si fudud waxaad leedahay click. Qaybtaasi waa qaybta searchingka. Qaybtaasi waa qaybta searchingka ee starting menu. Waxaa jira qayb kale oo la yiraahdo bin. Haddii aad rabto inaad bin ka qaadid application meeshaan kuu saaran, waxaad leedahay right click. Tusaale waxaan rabaa inaad bin ka qaado Word. Waxaan leeyahay right click. Kadib waxaan leeyahay unbin. Sidoo kale haddii aan rabo Excelka inaad bin ka qaado, waxaan leeyahay right click. kadib waxaan leeyahay unbin. Haddii aan rabo inaad dib ugu soo celiyo Wordka bin, sidoo kale aan rabo Excelka inaan ku soo celiyo bin, waxaan tagayaa all apps. Kadib waxaan inta ka baarayaa Word. Tusaale Excel waa kana, waxaan rabaa inaan bin gareeyo, waxaan leeyahay right click. kadib waxaan leeyahay bin to start. Sidoo kale waxaan raadinayaa Word. waa kana Word. waxaan leeyahay sidoo kale right click. sidoo kale waxaan rabaa inaan Wordka bin gareeyo, waxaan leeyahay right click. kadib waxaan leeyahay bin to start. Hadda sidaasi waxaan ku bin gareeyay Word iyo Excel. Haddii aan ka laabto qaybta, waxaan tagayaa qaybta hoose ee binka. waxaan dooranayaa, waxaan raacayaa falarta hoose. kadib waxa halkan kaaga muuqda waa Excel iyo Word, kuwaasoo adiga aad soo bin gareysatay. Si lamid ah starting menu waxay qabataa inaad ka arki karto dhammaan applicationada ku jira kombiyuutarkaaga. Waxaan leenahay all apps. Dhammaan waxaad arkaysaa applicationada ama appska ku jira kombiyuutarkaaga. Haddii ahaan lahayn softwares, waxaan leenahay all apps. kadib waxaa kaaga soo muuqanaya dhammaan applicationada ama softwareda ku jira kombiyuutarkaaga si fudud. Kuwaani waa software ku jira kombiyuutarkayga. Si lamid ah waxaad arki kartaa dhammaan applicationada, hadday ahaan lahayd calculatorka, calendarka, kaamirada iyo saacadda. Dhammaan waxay ku jiraan qaybta all apps ee starting menu. Sidoo kale waxaa jirta qayb yiraahdo recommended. waxay kuu soo bandhigtaa shaqooyinka ugu dambeeyay ee aad qabatay. Waxaad leedahay si aad u ogaato shaqooyinka ugu dambeeyay ee starting menu aad ka qabatay, waxaad leedahay more. kadib waxaad arkaysaa shaqooyinka ugu dambeeyay ee aad qabatay, taasoo ay kuu soo bandhigayso starting menu. Shaqada kale ee qabatay starting menu waxaa ugu muhiimsan in kombiyuutarkaaga aad restart uga dari kartid, si lamid ah kombiyuutarkaaga inaad ka damisid. Sidoo kale
inaad kombiyuutarkaaga ka loo garaysid. Shaqadaas waxaa kuu qabanaya buttonkan hoose ee power. Haddii aan ku dhufano power, waxaa kuu soo muuqanayo afartan shaqo oo u qabto power buttonka power. Buttonka ugu horeeya, shaqada ugu horeeya qabato waa lock, inaad ka loo garayso kombiyuutarkaaga. Sidoo kale shaqada kale oo kuu qabanayo waa inaad sleep u dirtaa kombiyuutarkaaga. Si la mid ah inaad kombiyuutarkaaga ka dimisaa, waxaa kuu qabanaya buttonkan power. Sidoo kale inaad kombiyuutarkaaga restart u dirtaana waxaa kuu qabanaya buttonka restart. Shaqada ugu horeysa ee qabato start menu waa inaad ka search garaysaa applicationno ama documents ku jira kombiyuutarkaaga. Si la mid ah inaad adiga bin garaysataa application muhiim ku ah kaasoo aad rabtid mar walba inaad isticmaasho. Sidoo kale waxaa jira qayb saddexaad oo ah recommended, taasoo ah shaqooyinka ugu dambeeyay ee aad qabatay, taasoo ay kuu soo bandhigayso start menu. Sidoo kale start menu haddii aan korkeeda tagno kadib aan dhahno right click, waxaa kuu soo muuqanaya dhammaan shaqooyinka kale ee qabato start menu. Dhammaan shaqooyinkan waxaa qabto start menu. Tusaale, haddii aad rabto inaad wax search garayso, waxaad dooranaysaa buttonka search. Si fudud waxaa kuu soo muuqanaya iconka search ama buttonka search. Sidoo kale haddii aan mar kale right click dhahno, si la mid ah shaqooyinka uu qabanaya powerka, waxaa kuu qabanaya buttonkan shutdown. Sida aragto dhammaan shaqooyinkii hore aan u soo aragnay ee ah restart, inaad demisid, sidoo kale inaad sleep u dirtaa, waxaa kuu qabanayo buttonkan. Sidoo kale haddii aad rabto kombiyuutarkaaga inaad ka beddesho settingkiisa, waxaad dooranaysaa buttonka setting. Soo dhawaada saaxiibayaal, dabcan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir insha Allah. Waxaan rajeynayaa insha Allah inaan wax badan kala faa'iidi doono hadduu Alla raalli ka ahaado. Magaciiguna waa Injineer Ismaaciil Maxamed. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.